Hello, my name is Haweyneey. I am a German national from the city of Hamm. I was captured on the 2nd of May 2018 while I was working for the ICRC in Mogadishu. So now I have almost spent 7 years in captivity in Somalia. gabar u dhalatay dalka Jarmalka oo afduub loogu haystay muddo 7 sano ah koonfurta Soomaaliya ayaa fariintan u soo dirtay dawladeeda Jarmalka iyadoona sheegtay inay ku jirto xaalad murugo leh. waxay ku bilowday hadalkeeda magacaygu waa Sonja Naitata waxaana u dhashay dalka Jarmalka waxaana ka shaqeynaya hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ee loo soo gaabiyo magaceeda ICRC. 2 May 2018 ayaa la iga afduubtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayay tiri halkaas oo aan ka shaqeynayo tan iyo markaasi waxaana afduubanahay muddo 7 sano ah iyadoo aanan weli helin wax talaabo ah oo cad oo lagu xaqiijinayo siideentayda. sida labada ogsoon yahay xaaladda Soomaaliya si degdeg ah ayay isu bedelaysaa. dhawaan waxaa la beegsaday kolonyadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo la isku dayay in la dilo. sidoo kalena safaaradda Mareykanka waxay soo saartay war-saxaafadeed ay muwaadiniinteeda uga digayso khatarta ka jirta Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee ilaa hadda cidina kama aysan hadlin xaaladda dadka la afduubtay ee aan anigu ka midka ahay. xaaladeyda caafimaad si xawli ah ayay u sii xumaanaysaa waxaana dareemayaa baqdin joogto ah oo la xidhiidha noloshayda iyo caafimaadkayga. haddaba waxaan fariin degdeg ah u dirayaa dowladda Jarmalka, muwaadiniinteeda Jarmalka iyo qoyskayga ee aan jeclahay. mar walba waxaan ka fikiraa in aan dib idiin arko. waxaan idinka codsanayaa in aad si degdeg ah tallaabo uga qaadaan xaaladeyda sababtoo ah mar kasta oo aan sii joogo xaaladeydu waxay noqonaysaa mid ka sii daraysa. sidaas darteed waxaan idinka baryayaa in aad samaysaan wax walba oo aad awoodaan si aan dib ugu laabto gurigayga si nabad ah. waxaan ahay shaqaale bini'aadamnimo oo muddo 3 sano ah la shaqeynayay hay'adda ICRC aniga oo nafteyda u horay caawinta dadka dhibaataysan iyo ilaalinta kuwa aan isdifaaci karin. waa murugo weyn in ICRC iyo dowladda Jarmalka aanay wax talaabo ah ka qaadin siideentayda. sidaas darteed waxaan ka codsanayaa muwaadiniinteeda iyo qoyskayga in ay si degdeg ah uga shaqeeyaan sidii xorriyadeyda ay loo heli lahaa sababtoo ah waan ogahay in haddii aad dadaashaan xal la heli karo oo dib la igu soo celin karo. dadka i haysta marka hore ayay caddeeyeen nafteeda ayaana u baqayaa haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin. sidoo kale waxaan si toos ah fariin ugu dirayaa Chancellorka Jarmalka. mudane Chancellor, waxaan isku halaynayaa awooddaada iyo dareenkaaga bini'aadamnimo. waan ogahay in fargelintaadu wax weyn ka bedeli karto xaaladda adag. noloshayda ayaa miiska saaran. maalin kasta oo aan sii joogo halkan xaaladeydu way sii xumaanaysaa mid jireed iyo maskaxeedba labadaba. fadlan ha ogolaanin in xaaladdan ay sii xumaato. waxaan kaa codsanayaa in aad ka shaqayso sidii dib iigu soo celin lahayd gurigayga. aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo dadaalkaaga ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay. weli lama cadeynin cidda sida rasmiga ee ay ugu afduuban tahay. Hello, my name is Haweyneey. I am a German national from the city of Hamm. I was captured on the 2nd of May 2018 while I was working for the ICRC in Mogadishu. So now I have almost spent 7 years in captivity in Somalia. As you know, the situation in Somalia is changing rapidly. The convoy with the Somali president Hassan Sheikh Mohamud has been targeted in an assassination attempt only about more than a week ago. And the US Embassy has released statements warning their citizens about the dangerous situation in Somalia. However, no one has spoken so far about the situation of the hostages, like myself. My health
is deteriorating day by day, and I am deeply concerned for my safety and for my well-being. So I am addressing this message to the German government, to my fellow citizens, and to my loved ones back home, because this is what keeps me going, to think of seeing my loved ones again. I'm asking you to take swift action to ensure my release. Because the longer I stay in these difficult, in these dangerous conditions, the higher is the risk for my health and for my well-being. So I beg you to do everything in your power to get me back home safely. I am a humanitarian aid worker with the ICRC for about 3 years. I dedicated my life helping others who are in need and protecting those who cannot protect themselves. However, sadly, both the ICRC and my government did not do anything yet to secure my release. So I am appealing again to my fellow citizens and to my family to act swiftly to secure my release, because I know that if you do what you can, we can find a solution to bring me back home safely. My captors have their demands clear, and I fear for my life if action is not taken immediately. I am also appealing directly to the German Chancellor Olaf Scholz. Dear Chancellor, I am counting on your strength and on your compassion. I know that your intervention can make the difference between life and death for me. My life is at stake. And every day that I spend here longer, every moment is taking a heavy toll, not only on my physical, emotional and psychological well-being, but also on that of my family. So I'm asking you to not let this situation escalate any further. I am counting on you that you do not let this tragedy continue for much longer. I am counting on you that you bring this terrible ordeal for me to an end, and that you bring me back home safely, back home where I belong. I thank you for your time and for your attention.